السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeeni aqoon kororsi Ramadan Mubarak meel walba aad joogtiin dhamaan asxaabta ku xiran YouTube channelkaani fadlan channelkan aad ku cusub tahay subscribe tana saaro mar waliba waxaan ku leeyahay subscribe saaro ha iga iloowin haddii horaan joogteen like share and comment waa dhankaaga maantadaani sidoo kale su'aalahan ayagana waxay ku saabsan yihiin diini marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontid insha Allah haddii la yiraahdo markaas la socod wanaagsan guys sanadkee dhacday duulaankii daati riqaaca mar labada daan ku celiyo sanadkee dhacday duulaankii daati riqaaca jawaabo waxaa ka mid ah sanadkii labaad ee hijrada sanadkii saddexaad ee hijrada sanadkii afraad ee hijrada sanadkii koowaad ee hijrada mar labada daan ku celiyo jawaabaha sanadkii labaad ee hijriyada sanadkii saddexaad ee hijriyada sanadkii afraad ee hijriyada sanadkii koowaad ee hijriyada jawaabta sanadkii afraad ee hijriyada su'aasha labaad ee barnaamijkeena aqoon kororsi sheeg imaamkii koowaad ee qoraa kitaab ku saabsan axkaamta quraanka mar labada daan ku celiyo sheeg imaamkii koowaad ee qoraa kitaab ku saabsan axkaamta quraanka jawaaba waxaa ka mid ah imaamu abu xaniifa imaamu axmed imaamu maalik imaamu shaafici mar labada daan ku celiyo jawaabaha imaamu abu xaniifa imaamu axmed imaamu maalik imaamu shaafici su'aasha jawaabteeda waa imaamu shaafici su'aasha saddexaad ee barnaamijkeena aqoon kororsi waa sheeg saxaabigii hayay calanka ansaarta duulaankii badar sheeg saxaabigii hayay calanka ansaarta duulaankii badar jawaabaha waxaa ka mid ah saciid bin zubeer saciid bin zayd saciid bin mucaad sacad bin abi waqaas mar labada daan ku celiyo saciid bin zubeer سعيد بن زيد سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص سؤال جوابته سعد بن معاذ وأصحابه هاي عالم كأنصارتا دولانكي بدر سؤال أفراد برنامج كينا ninkii ugu horeeyay ee dhiig bani aadam galo magaciisu waa ninkii ugu horeeyay ee dhiig bani aadam galo magaciisu waa jawaabaha waxaa ka mid ah qaabiil israafiil haabiil baabiil mar labada daan ku celiyo jawaabaha qaabiil israafiil haabiil baabiil jawaabta su'aasha jawaabteeda waa qaabiil su'aasha shanaad ee barnaamijkeena saxaabigii qabtay xilka dowladda islaamka geeridii nabigeena sallallahu calayhi wasallam kadib waa mar labada daan ku celiyo saxaabigii qabtay xilka dowladda islaamka geeridii nabigeena sallallahu calayhi wasallam kadib waa jawaabaha waxaa ka mid ah cumar cuthmaan cali abubakar mar labada daan ku celiyo jawaabaha cumar cuthmaan cali abubakar jawaabta saxda waa abubakar su'aasha lixaad ee barnaamijkeena haddaan u gudagalo bilaha islaamka waxay ku dhamaadaan waxaa ka mid ah 30 ilaa 31 28 ilaa 30 29 ilaa 30 29 ilaa 31
mar labaad haddaan ku celiyo jawaabaha 30 ilaa 31 28 ilaa 30 29 ilaa 30 29 ilaa 31 ترجل بصوت وخيل jawaabta saxda ah bilaha islaamka waxay ku dhamaadaan 29 ilaa 30 ayay ku dhamaadaan marka su'aashii toddobaad ee barnaamijkeena aqoon kororsi haddaan u guda galo bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha ee bilaha islaamka mar labaad haddaan ku celiyo su'aasha bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha ee bilaha islaamka jawaabaha waxaa ka mid ah 12aad 9aad 1aad 6aad mar labaad haddaan ku celiyo 12aad 9aad 1aad 6aad jawaabta saxda haddaan u guda galo bilaha islaamka bisha barakeysan Ramadaan waa bisha 9aad ee bilaha islaamka marka guud ahaan oo ay ku saabsan su'aalihi ku saabsanaa aqoon kororsi aan idinku weydiinayay maanta su'aashan ayaa ugu dambeysay marka guys ama saxaabtida waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad fogeysiin meel fog gaarsiin si asxaabo kale idinkoo kale ayagana ay ugu faa'iideystaan oo mar waliba aqoontooda ay kororsadaan marka aqoon kororsigu waa shay runtii aad iyo aad muhiim u ah oo qof waliba muhiim u ah inuu aqoontiisa kororsado marka waxaan mar waliba diyaar u ahay inaan soo gudbiyo wax kasto faa'iido la bulshada Soomaaliyeed ama cid kasto daneynaysa inay wax ay ka fahanto muuqaalada aan soo dhigo marka waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad si share gareyso channelkana subscribe ta saarato si kuwa kale ay ugu soo biiraan thank you very much aad u mahadsantiin